وأنك سلام saaxiib ha isku adkeen nolosha wax waliba qadarka Rabbi ayay ku socdaan dhammaanba qadarada Ilaahayna waa wanaag oon hataa haddii ay ku xanuujiyaan Ilaahay ayaa wax si xoog ah uga baryaysaa markaasuu ku siin waayayaa oo aad ka murugoonaysaa ma garanaysid inaad tahay sidii cunuga dhalaanka ah ee u ooyaya marka uu arko kiniinka midabada qurxoon ee doonaya hooyadiina ay u diidayso maadaama ay ogtahay inuu doonayo wax u daran oo ay dhibaato ugu jirto Ilaahay ayuu u sugnaaday tusaalaha ugu heerka sareeya waxa uu ku diidana deeqa aadan dareemayn ayaa kuugu jirta waxaad waayaysaa wax kugu qaali ahaa oo aad u murugoonaysaa adigoo aan dhaadanayn in Ilaahay wax kasta uu ka qaadaba uu ku siinayo markii qadar uu wiilka yar dilay markii koowaadba waxa ay dhacdadaasi u muuqatay dil xadgudub ah sidaas ayuu muusana nabadgelyo korkiisa haatay u maleeyay waana marmadoon in qalbiyada waalidkii ay qaraacmeen markii ay maqleen in cunugoodii la dilay kadib ayuu Ilaahay xogtii qarsooneed ee qaybka ahayd daaha ka fayday oo ay caddaatay in naxariista heerkeeda u sareeya ay ahayd dilka ilmahaasi Ilaahay adduunkaaga ayuu ka qaadayaa si uu kuugu dhooro diintaada saaxiib Ilaahay waxa uu wax ku dabaraa murtiyo naxariis aan inaga maankeena kooban ku soo dhacayn maadaama aynu aragti gaaban nahay fakarkeenuna uu xadidan yahay dhacdadana aynu ka harno dhinac yar oo kooban Ilaahayse dhacdada oo dhan ayuu wada koobay oo waxna ma seegana haddii aad ka mid ahaan lahayd masaakiintii laashkooda oo qadar dalooliyay laga yaabaa inaad odhan lahayd miyaanu nugu filnayn faqriga aanu la daala dhacayna maxaa haddana ishii keliya ahayd ee aanu haysanin looga jebinayaa marka aad aragto ciidan badeedkii boqorka gaboodfalaha ah oo dadka doonyahooda xoog kaga urursanaya ayaad garanaysaa naxariista Ilaahay oo aad fahmaysaa in dalool yar oo laashkaaga lagu sameeyaa uu ka sahlan yahay inaad gebigiisiba weydo xumo uu ka nasahan yahay Allaha waxa yar inagu imtixaamaya si uu waxa weyn inagu badbaadiyo saaxiib haddii uu arrinku la xiriiro Ilaahay ka edebso miyaad hilmaamtay Allaha irsaaqadaada kugu keeni jiray makaanka hooyada markii aad urku jiifka ahayd miyaad ilowday Allaha qalbiga hooyada kuu dulciyay markii aad naasnuuga ahayd oo ay habeen kasta kuu kacaysay iyadoo aan ku dhibsanaynin sidii inaad tahay adeegto boqorkeedii u shaqaynaysa miyaad ilowday aabbaha siduu quudkaaga kaaga soo furamaroojinayay nolosha si aad u weynaato u kawacdo una awoodaysato ma isweydiisay yaa kaa dhigay qayb ka mid ah qalbigiisa ee kuugu beeray dareenka ah inuu diyaar u ahaado inuu xataa hilibka jirkiisa qayb kuu soo jaro si uu kuu quudiyo oo aanu boggaagu baahi u dareemin waa Ilaahay waa Allaha adiga kaa deeqtoon si aan faraha kaa qaadin ee kor iyo kalba kula socda waa Allaha awoodda leh ee aan waxba kaaga baahnayn haddana kuu baaqaya ee aan ku daynayn miyaad ilowday waxaas oo dhan oo marka qadarkiisa ay kaa soo gaadhaan waxaadan jeclaysanin ayaad cagaha dhulka ku garaacaysaa oo aad dhibsi iyo kalahsi bilaabaysaa sug meertada maalmaha waxay ku daafaysaa xog maqan oo kaa didinayd waxaana aad fahmaysaa inuu Ilaahay wax kaa qaaday si uu wax kale kuu siiyo wax kasta oo ku haleelayna ay dib u habeen kuugu yihiin wax kasta oo uu ku dhaafiyeyna uu wax kaaga wanaagsan kuugu bedelay